ragga hogaamiyaasha sugada markii hore 65 waxaan bilownay nimankii aruurintii jabadii tii aad lagu haysaa dhinacna hubkii aan sugaynaa dhinacna jabadii aan diyaarinayna waa 75 marka 75 waxaan bilownay ciidankii waddanka xereyntiisa iyo qorshihii ciidamada cusbaa hubka cusbaa imaanayay dadkii loo diyaarin lahaa tababarkoodii iyo gaar soociddoodii waxaasoo dhan marka ciidamada waxaan ku bilownay taangiyadii hore oo duqa ahaa raggii ku qornaa awel ayaan taangiyada cusbaa u diyaarinay kuwii kalena duqa ahaana dad hor allaah ayaan samayn madaafiicda sidaasoo kale ayaan tii duudahay dadkii hore ee dad cusub uma aanaan raadin marka dadka saas loo samaynayaa degdegay haddiiba wixii ayay ku qabanayaan gaaladu waa naga yaabay taangiyaalka cusbaa markay dekeda ka soo degan horaa laga dafay oo xaggeed ku baratay soco dayuuradihii sidoo kale mix 17 aan wadanay dayuuradii cusbaa markay yimaadeen soo diray markay dhaheen rag kuwiis mix 17 ka wada jiraan u dirnay markaasay 2 bilood ka dhigeen waxay dhahay mix 21 ay la yimaadeen mix 17 kana dad hor allah oo soo saasaan arrintii ciidamada gobonadoonkii markii la maqlay gobonadoo la rabaa wax alla iyo wixii Soomaali iyo noo Soomaali ahayo halkan jiro ay nagu soo yaacay marka waa kala soocnay dadka oromada hal week camaran celinay oo maarka xirtirnay waa hubeyna dibaan u dirnay marka waxaan idhi dhulkiinii taga waxaa jira niman la yidhaahdo landlords yacni feudalism baa meesha jiray dhulgoosadka dadkii dhulgoosadka ah oo hanti lahaa oo ah boqortooyada iyo kiyasada macnaha churchka iyo kuwii ahaa maaragtay hantilayaalka boqortooyada ku xirnaayo maaragtay meesha marka waxaa xukumay Haile Selassie aa dhulka leh nin la yidhaahdo waxaa la dhahayay agliru habtawal waa family dhan oo 40 sano prime minister ahaa marka dhulkan u soo yireeyay iyaga iyo reer boqorkaada saan u sano kiyasaduna dhinaceedii ordaysa ayadana dhulka dhan baa iyagaa leh dadka kaloo dhan waa doonfuul waa tabcayaan markay tabcaana wax yaraa la siina inta kale waxaa qaadanaya ninkii dhulka dadkaas iska eriyaan nala jabadi eriya laaya ha eriyinina laaya ibirka dhiga dhulkiinina qabsada dee berihiina qaata garanaysaa landlord oo dhanna dila Eritrean waa hubaysay macna ya Eritrean dadka ma Eritrean waa wax kala jabada jirta tii Soomaalida marka oromada saas u galnay tan oromada intaad ka gudbeen ya tan oromada intaad ka gudbeen numberka aad hubayseen ma ogaan karaa meeqa waa aaday u fadlan 20 kun ku dhawaad waa haween qoryo badan oo meelaha iska yeeliyay oo maaragtay ku hurgufnay marka every ka dhigeen waa jafeen waa kale eriyeen mana xagga si jeestaa wada xagga eri laakiin Soomaalida jabada Soomaalida waa tababarnay si xoog loo tababaray qoladii loogu talagalay inay dhinacan koonfurtaan qabradaare iyo goday iyo dhulkaas inay ka howlgalaan halkaan xamaraan ku tababarnay meel la yiraahdo Qorilow oo 70 kilomitir xagga waqooyiga naga xigta halkaasaan xero uga samaynay halkaasaan ku tababarnay 1500 hal sano camal 75 oo dhan ayaa tababarkaas ku waday
xisbi baa jira markaa Soomaali galbeed la dhahay nimankii golaha dhexana halkaan ku tababaray halkaan xamar ciidankana halkaasaan geeyno ku tababaray hal sano markay tababaranay ayaan maalintii dambe dhaqaajan waxa weeye aakhirkii 76 waxaan leeyahay aakhirkii may bartamihii 76 markay bartamihii 75 soo bilaawday waa dagaal gelinay ku dar meel la yiraahdo qarri jiqo xarun uga dhignay qarri jiqo halka Soomaali galbeed nuucdeedaas halkaasay markaas dib u soo rogmaday saas ugu soo jeestay wixii maamul ahaa oo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ceelasha jiray booliis ha noqdeen maamul degmo ha noqdeen wixii dhan ay soo xaaqeen waxay isugu soo arooriyeen goday iyo qabridaar xagga waqooyiga sidaas oo kale 1500 oo nin aan ka diyaarinay isla waqti meel la yiraahdo tuulo la yiraahdo agabar oo hadda degmo laga dhigay oo Hargeysa 50 kilomitir waqooyi ka xigta halkaasaan iyagana ku xiraynay halkaasaan ku tababarnay isku maraan gelina labadaba marka kuwan dambe inta u dhaxaysa harar iyo jigjiga inta u dhaxaysa wadadaas dhuunqabad aan u bixinay inaan waxba wadadaas weyn oo istaraatiijig ah oo lifeline-ka ah xiran wadadaas xiran dhuunqabad aan u bixinay waa dadkii oo Hargeysa iyo dalkaas ugu soo wareegay halkaasay ku dhigeen wax u dhaqaaq ciidamadii wax shimbiruna ma marayso meesha markay halkaas joogato oo ciidamada dhammaan lagu soo shubay jigjiga lagu soo aruuriyey miyiga dhan laga soo joogo baladada wax u imaanayo sabalaya male wax sabalaya oo u imaanaya male walaa raashin walaa shidaal walaa rasaas wuxuu imaanaya qowdana intaas waa la isku hayaa balaaya ka rab balaaya dhaca okay markay halkaas marayso ayaa ruushkii mingistu markay halkaas marayso markii hore markuu inqilaabka sameeyey fiila Chinese oo noqday Chinese oo Maoistay noqday Maoist oo noqday nin waxaa jiray Oromo ah xisbi Oromo ah jiray oo Mayson la yiraahdo Mayson nin wax Hayle Fidaa la dhahay ayaa wuxuu ka ahaa xubin Hayle Fidaa professor Hayle Fidaa la yiraahdo waa hal ma oo meesha fadhiya mingistu markii hore Oromadu salka saartay amxaaradu la dagaalamay marka ninkaan gacanta ku dhigay halkaas loo jeeyay markaasna ruushka iyo Chinese-ka laysma tuso markaas xanaaq hore la sii qaadan ruushka mingistu wada nugu mingistu markuu arkay inay ismiisaamay Chinese-ka iyo midowga Soviet oo arrintii bedeshay warqado qoray wuxuu yiri marka hore inaan imaadaan rabaa la ogolaado kala yaali uu tagay warqad cad oo hoos agdhigay ninkii la dhahay barasha war waxaad rabtid ku qoro waxaad rabtid aan sameynaya ee nimankan oo naga celi معناه روش كوتك يا روش كوتك من جسد روش كوتك مركزوا لي رجعني علوة قلبه يعني سماه ها والله كل ما كي
Brezhnev markaasuu yidhi wax alla waxaad rabto waraaqda ku qoran waxaad rabtadaan samaynaya nimankaan oona iga celi boobaya oo hadday saas ku socotana dhowr bilood ka bacdi Ethiopia baa aynay jiri doonin Brezhnev waxba u ka gartay hadalkaas waa u qushuucay hadda wuxuu leeyahay mugis waa faanay markaasuu yiri anigu rajciyaddii dhan waa laayay boqorka xubaa waa riday aglilo habtawalda iyo wixiisii iyo fawdaalismihii iyo landlordska dhan waa dhameeyey militariga iyo saraakiishii generaaladii waaweynaa oo ku xirnaa nimanka boqortooyada kulli waa laayay waana run waa laayay annagu waxaan nahay dad hoose oo maaragtay la gumaysto oo beeraaleyaan beeraaley garanaysa annaga gacaanka runta nimanka samayn kara waa annaga maaha Soomaalidan reer guuraaga oo ariga raacanaysa oo nag leh ruushkuna gacaankiisa dhanba waxaa waday beeraaley iyo shaqaale marka halkaas waa la isaga soo dhacay beeraaley oo u qashuucay waa yaalay bal orado intaana waxna waa lagu siinahay waxubana waa siiyay waa ka ballan qaaday